kusoo dhawow channelkayga Nahyan Cooking. waxaa ka heli kartaa cuntooyin kala duwan, isqurxin iyo waxyaabo kale oo badan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. asxaabtayda kusoo dhawaada channelkayga Nahyan Cooking. ugu horreyn asxaabtayda waxaan idinkaga mahad celinayaa sida wanaagsan aad ii dhiirigelisaan commentiga quruxda badan igu soo qortaan. dhammaantiin waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin, kama daar inaan idin mahad celiyo. waxaan sameysanaynaa juice ama waxaa la dhahaa cabitaan aan sameysanaynaa. meesha waxaan ku haysanaa fruits ama khudaar. inta waxaan ku haystaa cambe, beetroot iyo avocado iyo qare. afartan shay aan meesha ku haysanaa. waa soo jarjarayaa marka hore saa u sameynaa ila arki doontiin insha Allah. asxaabtayda waan soo jarjaray. asxaabtayda fruits waan soo jarjartay. mid walba gooni aan soo jarjaray sida aragtaanba. mid walba weel gooni aan ku soo riday. sababta ugu soo ridayna waa ila arki doontiin insha Allah. waxaan rabaa mid walba inaan gooni u shiido, kulli inaan isku shiido ma rabi. waa ila arki doontiin insha Allah. cambihi waa kan, beetroot waa kana. beetroot ama bitraf ana wax kale ma aqaan, kan beetroot leh aqaana. intan waxa igu jiro qarahi aan ku soo jarjartay. intan avocado waaye, avocado ama avocado habsla taqaani. soo marka waa soo shiidanaynaa asxaabtayda. marka hore qaraha ku hormaraynaa. bismillaah. blender aan ku soo shubayaa. waa soo shiidayaa insha Allah. qaraha iyo cambaha sokor kuma daraay. avocado iyo beetroot ka sokor yar ku daraaya insha Allah. waa soo shiidaa, isku soo laabanayna insha Allah. asxaabtayda waan soo shiiday juice-ki. waan soo shiiday mid walba goonigiisa u soo shiiday, iskuma darin. ina isku darmay rabi. waa ila arki doontiin koobasha ku shubaya. inta avocado ku soo shiiday, intana beetroot kan ugu jiro. intana cambihi waaye. cambaha iyo avocado biyo badan kuma shiidan, wax yar halka bacma ku soo shiiday. biilaan hataa waa shiidi kartaa, laakiin blender-gani aan isticmaalay mid oo loogu talagalay waayo waxyaabaha jilicsan. marka saasaa wax yar biyo ugu soo daray. haddaa rabtid biilaan waa shiidi kartaa. beetroot-ka iyo maxaa la dhahaa, beetroot-kana biyo kusoo shiiday asagana. qarahana biyo uma baahna, asaga waa biyo ah. wax yar been oo halka bacmala asina kusoo shiiday. marka beetroot-ka iyo avocado-da bisa sokor kusoo daray. labadan sokor kuma darin. qaraha iyo cambaha ayaga sokor haysta, sokor uma baahno. marka koobashan ku shushubaya. qaandada weynkaana isticmaalaya aan ku shushubaya koobasha. marka hal qaanda ma isticmaalay because marabi juice-kan inuu isku kay darsamo. marka saddex qaanda inta ku haysta saa arkaysaanba. intan waxaa igu jiro qaraha. marka saxanka kana inta soo dhiganayna kana iska soo leexinayna. asxaabtayda koobashan ku soo shushubaya. midna cambaha hoos marinaya. bismillaah. midna avocado-da hoos marinaya. kan waxaan ku soo shubaya avocado-di. kan cambaha dhexda gelinaya. kan avocado-ga hoos mariyay, kana cambaha. marka haddana inta waxaan ku soo shubaa avocado, intana waxaan ku shubaa cambe. siinaysaa asiisanaysaa. markasto cambaha iyo avocado-da hoos marinaysaa ama dhexda gelinaysaa. labadan oo jilicsan
because cambaha waa biyo maxaa la dhahaa qaraha waa biyo hoos haddii aa marisid ama dhexda aa gelisid hodhow wixii oo dhan waa isku kaa qasmaaya marka kan biyaha aa mar walba kor marinaysaa cambaha iyo afkaadhada adag labadooda dhexda iyo hoosaa mariyay labadan oo biyaha ahna waa u koreynayaa kan beetroot-kan waa qasa asina wuu jilicsan yahay labadan oo jilicsan marka kora marinaynaa si oo isu keen qasmin inta waxaan kusoo shubayaa hadda qaraha hadana waxaan kusoo shubayaa beetroot-ki marka kulli haddaa rabtid waa hal mar waa isku wada shiidi kartaa laakiin saa markaa u samaysatid koobka quruxuu kasoo baxaya maasha allah tabaaraka raxmaan soo ma aragtaan sidaan quruxda badanoo noogu soo baxay waa kaasa halkii kooba wuxuu noqday 3 nooc oo cabitaan camal maqaayadaha markaa tagtaan koobkan oo kale ugu yaraan $1 la idinka siiyaa soo mahan marka fruituska soo gada guriga ku samayso halkaas $1 familiga dhanaa wada cabi kara ma fahanteen lacagta yaa la qasaarinin dhaqaalaha la seebgarey ma fahanteen yaa ka faa'iidaysta insha allah weli yani maqaayad wax kama cabinay waxaan u malaynaa waa qiyaasaya laakiin halka koob inaa $1 ama $2 meelahaas lagu cabo marka fruitis intaa soo gadatid gurigaa ku samayso halka $1 ama $2 familiga dhanaa waa cabi karo oo intaan bis ma ahan hadda aniga koobashaan bis ay idinku saa laakiin juice kale ay soo haray oo weel iigu jiro marka ka faa'iidaysta insha allah kan qaraan soo suraya kana aan soo suraya beetroot-ki si qofku wuxuu cabaay uusan hodhow ugu wareerin yani uu u fahmo cabitaanka waxaa laga sameeyay uu u fahmo qofka waxaa inta u soo suraya qara iyo beetroot strawberry waa cabi lahayna waa kan ما شاء الله تبارك الرحمن كفايديستا ما شاء الله عبيتان كيني سيداس قروحدا بدن oo noogu soo baxay ما شاء الله تبارك الرحمن كفايديستا asxaabteyda cabitaan qurux badan oo kaala iska aragno noqon fahanteen soo asxaabteyda kafaaideysta sidaan quruxda badan noogu soo baxay haddii aad rabtid waa isku shiidi kartaa waxa dhan laakiin saa markaa u samaysatid koobka quruxuu kusoo baxaya wax qurux badan inaa miiska geysida fiican sooma wixii indhaha deeqaa uurkana deeqaa la yiri marka iska quruxso waxaaga insha allah ka faa'iidaysto walaalahay qaaliga channelka hadii aad ku cusub tahay fadlan subscribe ii saar beelkana on ka dhigo markaa subscribe saartid si aad u heshid video kasto aan soo geliyo sidoo kale haddii aad hore ila joogtay video like ii saar share garay asxaabtaada ehelkaaga la wadaag insha allah ka faa'iidaysto walaalahay qaaliga assalaamu calaykum